Dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay taageerayso isbahaysiga saddex geesood ah ee ay samaystaan dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Ereteriya. Safiirka waddanka Ruushka ee Addis Ababa, Yevgeny Trekin, ayaa sheegay in waddankiisa uu taageerayo isbahaysiga saddexda dal ee loogu magac daray Xulafada Geeska. Safiirku waxa uu sheegay in qorshaha isbahaysiga uu muhiim u yahay nabadda Geeska Afrika oo ah gobol ay ku badan tahay xasilooni darrada. Trekin ayaa xusay in si loo helo nabad iyo xasilooni waarta oo ka dhalata Geeska Afrika ay dowladda Ruushka garab istaagayso isbahaysiga soona dhaweynayso hindisaha lagu dhisayo. Dalalka Itoobiya, Soomaaliya iyo Ereteriya ayaa sanadkii 2018 ku dhawaaqay isbahaysiga Geeska Afrika oo ay ku midaysan yihiin saddexda dal, kaas oo ka shaqeynaya isdhexgalka dhaqaale iyo bulsho ee Geeska Afrika, sidoo kalena ay dalalka iska kaashanayaan ammaanka, ganacsiga iyo horumarinta. Madaxweynayaasha Ereteriya iyo Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa dhowr jeer ku kulmay saddexda caasimadood ee saddexda dal, waxaana ay kala seexdeen heshiisyo ay ku wada shaqeynayaan.